arintaas si fiican bay u dhacday annaga ka xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba marka horeba waxaanu aaminsanayn in labada xubnood ama komishanka oo dhan la ansixiyo si ay hawshooda u qabsadaan doorashooyinkuna waqtigii loogu talagalay u dhacaan ban marka horeba anagu aaminsanayn marka xisbiga kulmiye marnaba muu hortaagnayn in la ansixiyo komishanka maantana si fiican ayaa loo ansixiyey labadii xubnood ee markii hore komishanku golaha wakiiladu reebay marka anigu waxaan leeyahay haddaba waa kaas ninkii baanaayo lagu fasax qabsada hawshiinii waqtigeediina idinkaa laydinka sugaya ninkay ku hadhay howlahaysa waxay ku kala duwan yihiin markii hore waxa loo diiday laba asbaabood bay ahayd nin markii hore golaha buu hor imano wuu diiday oo isaga iskii u diido arinta lagu haystay taas ahayd ninka labaad laba guddi ayuu ku wada jiray isagana arintaas hor istaagtay waa ninka komishankii laba guddi kuma wada jiri karo marka labada asbaabood baa loo sababeeyay loo foosaareynay marka imka kii Cabdifataax uu ka tanaasulay guddidii hore kii kalena apology uu ka keenay saadaradeed labadii nin basaasan ku sii deeyay annaga kulay wixii nagu xidhan doorashooyinku meelo badan bay ku xidhan yihiin annaga wixii nagu xidhan ka xisbi ahaan iyo ka gol ahaanba waanu fasaxay waanu sii deynayna si degdega saami qaybsiga waa arin jirta laakiin iyaga laftigeedu waxaan u maleynayaa iyada laftigeedu xukuumaddu sidii u fududeyd bay u dhameystiraysaa